si loo arko looguna dhaqmo. Muxuu yahay farqiga u dhexeeya dawladaha saboolka ah iyo kuwa ladan? Farqiga u dhexeeya dawladaha saboolka ah iyo kuwa hodanka ah ma ahan da'da waddankaasi. Taasi waxaa muujin kara wadamo ay ka mid yihiin Hindiya, Masar oo jira in ka badan 2,000 sano welina ah dalal faqiir ah. Dhanka kale, Canada, Australia, New Zealand oo 150 sano ka hor ahaayeen kuwa aan micno lahayn ayaa maanta ah dalal horumaray oo qani ah. Farqiga u dhexeeya wadamada saboolka ah iyo kuwa hodanka ah sidoo kale kuma xirna kheyraadka dabiiciga ah ee ay wadamadaasi leeyihiin. Japan waxa ay leedahay dhul xadidan 80% buuraley ah aan ku habboonayn beeraha iyo beerashada, laakiin waa dalka labaad ee dhaqaalaha dunida. Dalku waxa uu la mid yahay warshad hawada sabaynaysa, dunida oo dhan ka soo dhoofsata agabka cayriinka ah, dibna u dhoofisa badeecado la warshadeeyay. Tusaalaha labaad waa Switzerland. Uma baxo geedka kakawga, waxayse soo saartaa shokolaatada ugu fiican adduunka. Dhulkeeda yar waxay ku dhaqdaa xoolaha, sanadkiina wax ka yar 4 bilood oo kaliya ay wax beertaan. Iyadoo ay sidaas tahay, waxay soo saartaa caanaha ugu fiican. Waa waddan yar oo tusaale u ah amniga dunida, taasoo ka dhigtay bangiga adduunka ugu xooggan. Sidoo kale, farqi maskaxeed uma dhexeeyo maamulayaasha ka soo jeeda wadamada qaniga ah iyo kuwa dhigooda ah ee ka yimaada wadamada saboolka ah. Sidoo kale, midabka dadku leeyihiin ma lahan wax muhiimad ah. Muhaajiriinta caajisowliyaal ku ahaa wadankooda ayay asahan ka soo jeedaan ayaa si xoog leh wax soo saar u yeesha marka ay tagaan wadamada qaniga ah sida Yurub. Haddaba, farqigu waa maxay? Farqigu waa habdhaqanka dadka oo sanado badan soo qaabaysay waxbarashada iyo dhaqanka. Marka aynu falanqeyno habdhaqanka dadka ka soo jeeda wadamada hodanka ah iyo kuwa horumaray, waxaa la arkayaa in aqlabiyadda ay u hoggaansamayaan mabaadi'da nololeed ee soo socda. Mabaadi'da nololeed ee horumarka keena waa kuwan: anshaxa iyo mabaadi'da asaasiga ah, daacadnimo, mas'uuliyad, ixtiraam shuruucda iyo xeerarka, ixtiraamka imanaya badi muwaadiniinta xaq ahaan, jaceylka shaqada loo qabo, dadaal badnida iyo maalgashiga, doonista iyo in qofku uu noqdo mid wax soo saar leh, waqtiga oo la ilaaliyo. Wadamada faqiirka ah, dad aad u yar ayaa mabaadi'dan asaasiga ah nolol maalmeedkooda ku dabaqo. Faqiir uma nihin kheyraad la'aan, sidoo kale nasiibkeena awgiis faqiir uma nihin. Waxaan sidaan u nahay waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano wax kasta iyo qof kasta. Sidaan ayaan nahay sababtoo ah marka aan aragno wax qaldan, waxaan dhahnaa naga dhaaf ha socotee. Waa inaan yeelanaa dareen iyo fikir. Markaas ayaan awood u yeelan doonaa inaan wax ka bedelno xaaladaha aan ku jirno. Haddaba, haddii aad jeceshahay dalkaaga iyo dadkaaga, isku day oo sii faafi fariintan si dad badan ay ugu fiirsadaan arrintan oo kale, dibna isu bedelaan. Mahadsanidin.